maamulka sare ee shirkadda Laydhka siisa magaalada Burco ee HECO oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa ka jawaabay cabasho maalmihii u dambeeyay shirkadaasi loo soo marinayay baraha bulshada maareeyaha shirkadda Laydhka ee HECO oo ay hareero joogaan xubno ka tirsan boardka sare ee shirkadaas ayaa si wada jir ah raaligelin uga bixiyay cid kasta oo cabasho ka qabta adeegaasi waxayna sheegeen in ay 15 bisha lixaad ee soo socota ay shaacin doonaan qiimo dhimis ay u samayn doonaan macaamiishooda. HECO waxa la aasaasay 2014 bishii Maarch ayaa la aasaasay waxaana ku midoobay shirkadihii gobolka Togdheer ka sii jiro 4 shirkadood ka kooban ayaa ku midoobay midowgoodaasi hadafkoodaasi wuxuu ka dambeeyay sidii bulshadu ay u heli lahayd leyd tayo leh isla markaana nabadgelyo leh qiimihiisuna uu macquul yahay marka qiimaha leydku wuxuu ahaa $1 iyo 2 filis buuxa halkii kilowatt ayuu intaas u ahaa ilaahay ma hadii shirkadu waxay ku guuleysatay ilaa 2014 inay laba jeer ay qiimaha dhinto qiimaha maanta ugu sareeya waxa weeyaan 0.79 ayuu halkii kilowatt maray runtii sanadka 2020 shirkadda qorshaheeda waxa kamid ahaa sidii qiimaha loo dhimi lahaa miiskay saarnay diyaar bay ahayd qorshihii maartay saddexaad wareegii saddexaad ee qiimo dhimisi inuu yimaado marka waxa dib loogu dhigay markay rabadaan in dhaafto bisha 15 in qiimo dhimistaasi ay dhacdo mar walba waxaan u dhagan ugu lahay وافر إلى 9 هيجونون هي وحويين عبشدة الدوينة هنا ضبولله وسيرس كانوا هنا وحوينا داف كران لكن وانكرها لقلنا عد كستو أو أمارتي أي دافتو أو أنو كالنتي أي نقفلين أنو كبوحين وانكرها لقلنا. جيست كلام معريها شركة هيكو خضر جبريل آدن وحاو كتامي إن شركة هيكو أي قيبوين كقادة واحترك بالشدة إسلام كان الله بلاش أهسيسو كوبها أديجير أساسي جاه. واحد شيء واحد قبض موضوع أنا بالشدة إنه هذا كأركسو. iyo mid aanan dadka la wadaagin darajada ay kala leedahay aan si sirri ah u bixino waxa tusaale inoogu filan oo tusaale soo qaadanaya goobaha lagu cibaadeysto oo 500 masaajid aan ka yareyn magaalada Burco ka yareyn dhamaantood shirkadu inay si free ay dabka ay ku siiso oo ku bixiso isbitaalka weyn ee magaalada runtii markii hore waxaan ka qaadi jirnay qiimo 100% aan ka qaadi jirnay lacagtiisa ma aanan helin muddo dhowr 10 sanadooda $200,000 baan ku leen leydkii imika waxa weeyaan waxaan u dhignay mashiin annagu aanu leen kuleed ka ciludoobay leydkii cilad kaga timi mashiin baan u dhignay mashiinkaan u dhignay shidaalkaan ku shubnaa annagoo yaani waxa weeyaan aad ogtiin inuu isbitaal u yahay dawliya oo boqolkiiba maxay tahay 70 annaga bixin oo daboola waxaad ogtiin jid kasta jidadka magaalada quruxda ay leedahay inaan ku xidhnay oo si free dabkaas ku baxo isla markaana xataa anagu aan maintenance ka bixino oo guluubka ka gubta iyo ka waxays ma dhaqaalihiis anagu aan bixino oo qalabka aanu gelinin ama guluubada aanu gelinin kuwa caalamka ku baxayeen oo aan ka dalabnay dibadda aan ku dalabno mugdi kasta ama shaaric kasta oo magaalada kamida leyd baa ku xidhan qof kasta oo customer-ka kamid uu og yahay halka uu yiraahdo madow uu yiraahdo leyd baan ka doonaya waan ugu xidhnaa wax shardiya male shirkadu inay samaysay mashruuc ay dadka danyarta ah ee xirfadaha IDB-yada magaalada ay qiimo dhimis ugu sameynayso afar IDB oo magaalada kamid ah sida xaafadda Koosar xaafadda Al Xuseen xaafadda Samriye Imaaniye xaafadda Aadan Saleeban afarta xaafadood waxa weeyaan dadka jilicsan baa ku nool waa xaafadintii hore intii aan dadkii dambe ku soo biirin weeyeen ayaa ku nool shirkadu waxay ku siisaa qiimo ah 0.4 ama 40 cent ayay ku siisaa qiimaha iyadoo oo dadka danyarta aan wax iska bixinayn ay ku nool yihiin xaafadaha noocaasa shirkadu waxay u sameysay inay dadkeeda danyarta ay ilaaliso oo gacanta ku hayso mar walbana wayna ka warhaysaa waxa kamid ah dadka reer Burco shirkadda dhamaantood ku midaysan yihiin wax qabiyaalada iyo la dagaalanka qabiyaalada waxa weeyaan waa shirkadda kaliya yaani waxa weeyaan kamidaysan ay dadka reer Burco ku leeyihiin wada leeyihiin ee wada ilaashadaan weeyaan dhamaantood wada ilaashadaan weeyaan saacadaha dadka loo xiro runtii shirkadu saacadaha dadka loo xiro dadku iyaga soo gata ganacsiga Soomaaliland ayaa keenta shirkadu iyadoo ma keento qofkuna kuma qasbana saacada laala saacadu soo qaato ayuun baa loo xiraa saacadaasi marka loo xiro de waan ciladna way keeni kartaa saxna way noqon kartaa waa aalad weeyaan waliba de inta badan aan quality-geeda leeynaga soo tijaabin marka waxa suuragal mararka qaar inay qofka laftigiisa ku dheerayso inay shirkadana
ku gaabisana wax suura gal weeye marka shirkadu iyadoo aqoontii iyo farsamayaqaanadii la kaashanaysa yani waxay ku xalishaa in de qofkii ay ka gaabisana de leeyahay markii xumaatay la soo bedel marka ay shaqeynaysan qofku soo kacdan laga bedelo mar walba qofkii isaga choice u leh haduu iska bedeliyo haduu ilaa qofkaasi saacadaasi way ugu dheeraynaysaa inta loo miisaamo ayaa haduu isagu choice waliba ku qanco ilaa ku qanco waa loo laga bedela dad le waxa weeyaan shirkadu guryaha gubtaa ma bixiso oo waxa weeyaan dadku guryaha gubta ma bixiyaan shirkadu ma bixiso runtii de waxaad ogtihiin dhibaatooyinku degsi badan bay u dhacaan guriga gubtaa de faynuus baa gubi kara qofku isaga iskii u gubi kara xaalado badan buu ku gubi kara laakiin waxa dhacda inta badan in shirkadda la yiraahdo gurigii gubtaba shirkadda gubtay taasina de sharcigana kuma fadhido laakiin waxa weeyaan wixii sharciyan shirkadda de marka la baaro shirkaddu ay yeelato ama dad ha noqdaan ama guryaha ha noqdaan de iyada bixiso oo sharci baa laakiin de sharci bay deelada gabagabadii xildhibaan jaamac xasan aadan oo ka tirsan xubnaha sarsare ee shirkadda HECO ayaa raaligelin siiyey shacbi weynaha reer Burco waxaana uu daaha ka qaaday in shirkaddu ay markii horeba go'aan ka gaadhay in ay samayn doonto qiimo dhimistaasi cabasho ah ee jira in aanu ka raaligelin doono haddii ilaahay ka dhigo haddii aanu boolka odayaasha shirkadda nahay inaanu hore qaraar u gaadhnay in sanadka 2020 qiimaha shirkadda Laydhka la dhimo oo marka hore qorshahan waxa ahaa go'aan shirkaddu gaadhay ma aha go'aan ciidamada lagu qasbayso ama ciidamada ay lagu riixday waxaan markaa ugu bishaareynaa horta shacabka bisha June 15keeda qiimo dhimistii la hirgelinayo shirkadda waxa la dad reer Burco Shaybe Umar Ismaan warbaahinta SBC magaalada Burco